waalid wadamadan aanu ku noolahay jiilasha waa la kala qaybiyaa hal mar lagama wada hadlo jiil walba si gooniya ayaa loo daraaseeyaa masalan qarniga hadda u dambeysay 1900 dadkii dhashay ilaa 1927 waxaa loogu yeeraa the greatest generation jiilkii ku xigay waxaa loogu yeeraa the traditionalist ama the silent generation jiilkii ku sii xigayna waxaa la yiraahdaa the baby boomers jiilka ku xigay waxaa la yiraahdaa gen x ama generation x jiilka ku xigayna waxaa la yiraahdaa the millennials jiilka ku sii xigay waxaa la yiraahdaa generation z ama gen z jiilka u dambeeya hadda carruurteena quraanka dhigatana waxaa la yiraahdaa alpha generation jiil walba waxaa saameyn ku leh marxaladii uu la noolaa haddaba janaalka waalid legacy maalmaha soo socda wuxuu ka hadli doonaa si qoto dheer dhaqamada ay leeyihiin jiilasha u badan bulshadeena maanta waa jiilka la yiraahdaa gen z oo dhashay 95kii wixii ka dambeeyay iyo jiilka ku xigay oo la yiraahdo gen alpha oo dhashay 2010kii iyo wixii ka dambeeyay labada jiil yaa rabnaa dhaqamadooda inaan idila soo gudbino fadlan muuqaaladan saad u hesho waalid follow dheh subscribe na dheh janaalka adiga lagu sameeyo la yiraahdo waalid legacy assalaamu calaykum Walid legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night, from roots so deep to skies so high.